بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وحنسوق بنا إن شاء الله تعالى قوي مكردو حالفي شيخ مهد حاج شكري حفظه الله ورعاه في الدارين، وغفر الله لنا وله ولأحبابه ولجميع المسلمين. تاريخ waxay maraysaa sagaalkii bishii safar 1448 oo ku beegan 23kii bishii toddobaad 2026. gabayguna wuxuu u bilaabanayaa sidan: inaan gabayba dhaafaan rabo aan warkii dhige haatifii dhawaaqiya sidii dhalowda moobeelka waxunbaa ku soo dhacahayo dheehi laabaha dibnaha weedhihii wixii loo dhigay qoran maantana dhaalay aan mohdo midhela aan dhiib makudhada dhambaalkeeda aan dhagaha gaadhsii dhumuclow maroodiyo ilaa dhulacsada yaacda wax dhashoo naf yeeshaaba wuu dhimani doonaa moodku kuma dhaqsado ruux dembiga dhiirrashow falaa cimri dheerar taaca iyo khayr kuguma dhaadaan ajal dhigan unbaa lagu dhintaa oo dhag laga siin inaan ruux la dhaafayn ku galo tahaa nabigii dhugnimaan lahayn baa ku luma dhanka beenta ah dunyo dheeli badan buu dalbaa saadhab laga siin taaca eebbaheeniya hadduu khayrka dhigan waayo ama uu dembiga dhoorto oo toobad dhihi waayo aakhare dhib uu kala kulmaa dhamacda naartii nimu eebba dhowraa kasbada daar dhalaal badan dhowroof addoonkii labaa taaca laasime ninkii dheelmaleeyaa galbada dheelmad foolxume iraadada ma dhaafniyo wuxuu eebbahay dhigay nin waliba dhabihii loo qoruu dharabsanayaa hanuun waa dharaaree ninkii dow dhaba aqaada ee dhowrta nabigii jannaa lagu dhoweeyaa naartana waxaa dhubuq yidhaah dhagax walaalkii nin walboo dhaqaaliya adduun darajadii dhowra ama dheel runtii moodayoo dhaanta tumanay iyo taaca kii quuta ee khayrka dhuganay kafantii dharkeedou dambeyn dhababka iilkii aakhare dhibkiiyo dheeftu waa labada dhoomoode ninba dhiishii uu dhaansaduu dhami nasiibkii kii samaan ku dhowraa jannou dhaxalsan doonaa lama dhimo ninkii khayr dhigtay daaca buuxsade dhibiciyo sharkii laguma diro dhulcasoo kale laxdhukani abaar moogta waan dhihi naqaanaa dhab ahaanse mahmaahdu waa mid inoo dhigan dheemankii adduunkiiyo kuwii dhaqayay diinteenna iyo dhammow aaqilkii aan garsoor dhinacna raacayn dheehiyo labeentii tagiyo dhuuxii oo idileh dhulka iyo waxay hoos mareen dhoobe iyo ciid dhoof aakharaa loo kiciyo dheelmadkaad garan haddii ruux la dhaafayo ay dhimasha daynayso daahirow rasuulkii qabriga laguma dhoobeen xalooshiisa dhowr baa hadhiyo dhuuni la ciyaar dheefraaca aan khayr lahayn waa dhibka u weyn taladii ma dhowro marbaa dhaalka loo dari dhibunbuu walwaalaa intuu dhaashadoos cune laaluush u dhaartaha rumay kala dhaqaaqeen dadkii dhowranayuu dhacaa osdhib badayaa dhoobaday u miisaan kuwii dhayda siin jiray iyaguna waxay dhaansadaan dhoomo saafiya dunyaa la dhaafsaday xaqii bilicda dheeraaye mar hadduu isagu soo dhufsaday oy dhashu u jiifto cidday gaaja dhuubaysa iyo kii dhintaba moog garashada wixii dhaawacaa waa dhadhama raac nimaan dhayda diintiisa rabin oon dhabba u jeedin danihiisa dheehu marmarin dheefkamuu hele dhiidhiiti loo qooshay bay qaar dhadhamiyaan ninkii dhiil ka buuxsaday dharkayn dhuunta marin waaye kama dheera geeridu dhunkaal ruux ku dhiiraday ma dhaliilin dunyadu hadday diin dhiskee tahay xaaraan ninkii dhunyado waa dhimbilo naar dhabtu waa dharaar iil madow la isu dheelmaa dhabtu waa ibliisoo nixiyo baadilkoo dhaca dhabtu waa walaalnimo qalbiga laga dhaqnaadaa dhabtu saamaxnaa weeye iyo nabad la dhowraa kolba kii dhibaataysanoon dhinac istaagnaa waa inaan hindisihii dhismale dhiirigelinaa dhabtu waa inaan qaadanaa dhaqanka diintii dhabtu dhinac mar weeyaan xumaha laga dhaqaaqaa dhabtu waa inaan taaca iyo khayr ka dharagnaa dhabtu toobad runa waa inaan wada dhawaaqnaa dhabtu waa midkeenni dhib wadoon dhaadka qabannaa dhabtu waa ka dhiidhiga wixii diinta dhaawaca dhidibada islaamka ee shantiyo dhuuxa qiritaanka iyo iimaan dhab loo qaata iyo dhaqanka raacay iyo dhabbihii rasuulka la rabay wada dhiskaanii allah yowna dhowr qaadirow waa dhab hadalkaa ilaahayna dheefshow markay dheedka naga gaadho saacaddii markii ay dhacdee laga dhawaaqsiiyo dharaar culus kolkii meel bannaan la isa soo dhoobo nin walbaa wuxuu sii dhigtiya camalkii loo dhiibo ee dariiq cidhiidhiya dadkii lagu dhabaysiiyo naar bay ku dhacayaan kuwii dhumay adduunkii
mu'minkana dhankii xawdka yaa lagu dhoweeyaa janno iyo wuxuu dhubuqiidhaa dhul barwaaqa ah maalintan dharjirinee la yahay sida dhallaan qaawan maalinta cadceeddii dhowday dhalada soo fuusho ee dhididku qooyee barhkood dhagaha gaadhay niman baan dhib kaa qabin carshiga hooskii loo dhigi oo taalac iyo raaxe iyo khayr halkaa dhami allahayow kuwaa nugu dhowee wada dhalaalay dabaqii fardoosiya allow taahan nugu aadi dhalintii asxaabtii iyo kuwii dhaaca falanay iyo oday aan taladu dhaafi jirin oo dhabta u jeedi allahayow rugtii ay dhaxleen deybka iyo nuurka qosolka iyo dharaabuqa jiriyo faraxa dheehay nicmada iyo sariiraha la dhigay laysku dhacdiidin iyo dhool cadayntooda iyo xuurta wada dhaasha dacaamka iyo sharaabyaha la dhami waxaa halkaa dhooban iyo dhugucyadaasaan rabaa inaan dhex joogaa dhammaanteen xumaantan falliyo dhoobadiyo qiiq dembi dhaaf allahayow nasiir lagu tahaaroo duubaa fardoosiya ridaha nugu dhaqaalays tawfiiqdu waa dhooldi iyo dheeman iyo luuli wax loo dhiga adduunyada ma jiro oo la dhaafsimaan dhadig iyo labood iyo carruur dhallinyarteennoo dhan iyo duqay ay cirradu dhaytahoo talada dhiibays annagoo dhammaan wada jiroon kala dhantaalmayn dhabaha jannada loo mariya taahaa nabigeen dariiqiisa nugu aadiyo dhimirka noo toosi oo laba talaba tii dheefta badan nugu dhaqaalayso wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu